dalkooda lama imanay in xuduudaha jiraan مثل ما كان هي قروي Soomaaliya ka soo baxeen anuu Faysal hore waan u sheegay anuu Minnesota joogay dhibaatada Soomaaliyeed meel kasta ka shareer ka saabura maanta waxay gaadeen awoodooda in marka adduunka laga hadlay la yiraahdo Somaliland iyo Puntland iyo Soomaaliya oo wadan saddexaad oo jirin oo shakhsiyaad dhibaato oo Soomaaliya jooga ay soo saareen marka wax weyn marka ku yoonayaan inay beeshooda abtirsiim ahaan ay dhulku sheeganayaan oo istifaac nabi wali bilayhiin yani difaac ban ma dawad waxay difaaceen dhul ay difaacayaan maanta togaraga waxaan u tagnaa waxa weeye waxay doonayeen inay dhul fits bay ku socdaan inay dhulkeena ku soo fidaan oo maadaama garow u dhow yahay xadka Somaliland ay doonayeen inay buffer zone samaystaan hore waxaan ugu tageynay واتيود خلاف نقول حقيقي دتكين هالكا دقن هي سومالان واتن نبدين تودني مر هداد تجسد هدان شعبي قال وآنو كأقلين تقسم هداد مامل كو جيسد لبعتك على كل مسا ما هذا واحد ويدك ديجان كاتك أنا سومالان هذا وهي الشيء خاتمة ودبسونة خاتمة أنت نمينا الحمد لله رب العالمين مركا عدش كي يمدتك بيش هادقن والماشي لوك فتس بان نقص على وقليل بيصورين مكان سميها قال كلام وأنا لو تصورين Somaliland دلوكين حقوق ولا كاريا أيوي مكان أنا يسكت اللان تذكر وسكمر مان لكن هذا شرعنا أمله حقوقنا ما قاعد كلام شرعنا ما قاعد كلام واحد ديري أنا حندير نادرك أولي بقى غير قالوا بوندلاند دجن بوساسو وضد كان صومالي حد كودلينا صوماليا iswada guursanay ehelnahay baa jir fiican baa noo socda waa meelaha aan socon kana Soomaaliya ugu nabad fiicanta garo deegaankaas inuu maanta halka aynu uga gurba lahayn Soomaaliya inteedii kale ay nabad aan ka ciyaar lahayn roolkeeni inuu maanta yiraahdo waxaan ku dagaalamayaa xuduudaha Soomaaliland baan bedelaya oo hartibaan keenaya garo hoos keenaya واتينا جنو سورتقل ولا مكان الصومال ولما مكيننا ونقصها هالكيننا شنتي صومالين يعني لابد تشير دقالك وقال إثيوبيا يعني كينيا كوف فلنا إن شفتكوا سمينا مكان إثيوبيا قبصني لابد يباور أدوك توين الله دقالمين وارسيو ناتبع إلا نقص وصاري تيبو كلية هاي ما كانوا حكوا هذا حدود لسميه أسكو كيننا بيشي مال ده غير لاس أنا واحد كحيجا غير وروري I mean there meesha la yiraahdo wardheere oo Ethiopia da wardheere waxa ku dara marka da wardheere ay isku dartaan iyo garoway dadmiis wala baabiya xuduudihi anaguna Ethiopia intaan ka galo beelahaan baan ku soo reer Soomaaliya anaguna aan ku wareey wadama xuduudihi marka la baabiya marka waxa weey waa fidma Soomaaliya loo soo diray Soomaaliya way ka soo baxeen road map-ka iyaga sameeyay Soomaaliya maanta qabiilka u kala qaybiyay qabiil baa calanka u sameeyay iyaga sameeyay oo 2.laba gobol iyo barba ha noqdo dawlad ha noqoto waxay ku qiyaasan iyaga laba gobol iyo bar garoowe iyo Boosaaso iyo inta mudug ka dhigaan in waxaag hadaynu eegno joojin meena Soomaaliya dagaalada sokay dawladda Siyaad Maxamed Siyaad Barana dadkii ugu horkacay ee inqilaabka sameeyay iyaga ahay dadkii markay Ethiopia la dagaalaminay ciidamadii dhabarka ka jabiyay ee taariikhda Soomaaliya mataqaanina galaal ma ka sheekeynayo anagoo joognay ilaa in jabina iga ahay markaasuu Maxamed Siyaad Bare markuu inqilaabka bilaabay ayuu Maxamed Siyaad Bare qabiilka u wareegay markan leeyahay qabiilka u sameeyay oo reerkooda isku xidhay nimankaas oo ka galay